runtii maanta halkan waxaan isugu nimid inaan digniin u dirno maamul goboleedka Puntland iyo gobolka Nugaal ee ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ee maamulka Puntland uu hoos yimaado iyo degmada Garowe bariyahan dambe waxaa soo batay xadgudubyo dhuleed oo runtii aad u soo faafay inta badan qorsheedu iyo abaabulkeedu uu ka yimaado Garowe iyo maamulka Puntland waxaan leenahay de baaq baan u diranaa nabadeed marka hore anagu Soomaaliland waa nabadoon nabad wax ku raayay xumaan iyo dhibaato dagaal xukum raayso waxaan ka codsanaa inay nabadda ilaaliyaan derisnimada ilaaliyaan walaalnimada ilaaliyaan wada ogteeno de wax inaga dhaxeeya waa derisnimo iminka marka derisnimada inaad ilaalisaan daaqa cidna isma diido oo la soo talaaba annagu inta badan dawlad ahaan ma ogolaan karno taaka dhul ah oo gobolka Sool ah marnaba in lagu soo xadgudbo ma ogolaanayno wada ogteeno dal iyo dhul midna inaga ma dhaxeeyo waxaanu nahay laba dal oo derisa marka inta ina ilaalisaan baleed ka raba dal iyo dhul midna inaga ma dhaxeeyo taaka dhul oo gobolka Soolana ma ogolaana runtii in aan ku soo xadgudubtaan dal iyo dhul midna inaga ma dhaxeeyo anagu Soomaaliland baan leedahay idinkan Soomaaliya la yiraahdaa wala maamul goboleed ka tirsan baatiin dawladda federaalka hore dhulka loo kala hadeeyay wixii saan cadaalihii Ingiriisku oo calaamadii hadaan dhaafno waa idka gardaran wixii saan cadaalaha Talyaanigu calaamadsaday hadaan noo soo dhaaftaan waa naga gardarantiin maalmo waxa la isku haystaa waa meel aan leenahay ama meel ay leedihiin annaga dadkaygu ma xadgudubka ma yaqaanaan mana doontaan runtii inay dhulka ay Garowe xukunto ama gobolka Nugaal aan dariska nahay Soomaaliya aan ka dariska nahay oo isagu nagu soo xadgudbo maalin walba dadkay kuma xadgudbaan mana aadan mana doontaan waqtiina cilwaasid baan ka soo guurnay oo dadkay ka soo guureen xagga uma dhaafsana shalay bixin baa la isku haystay waa la isku haystay control la dhigteen bixin baad maalin walba timaadaan oo aad doonaysaan inaad mashaariic ka samaysataan intaas nama qabato marka tan runtii dulqaadku uu soo dhamaanaya hadii intaas la iska qaadan waayo dawladda Soomaaliland waa waajib inay difaacdo xuduudeeda iyo dhulkeeda iyo dalkeeda iyo dadkeedaba inay difaacdo waajib waxaan ixtiraameynaa in dadka ehelka ah runtii dariska ah reer miyiga daaqo ka dhaxeeyo maalba iyagu la isu dhoosi sidaas la hadhowna ciidamo iyo awood iyo dhaqaale iyo military iyo xoog lagu soo xoojiyo wax la aqbali karo ma labada reer runtii meesha isku farasaaray waa ka xunnahay taasi waan ka diranaa baqna waa ka diranaa dadka ehelkaana inay islaayaan raalli kamanin laakiin siyaasadda ka dambaysa waxa weeye in magaalada Garowe lagu soo fidiyo halka inay dhul u noqoto inay deegaan oo si TV shalay ka baxaysay arrinta raalli laga noqon karo maaha cid aqbali kartaa ma jirto waana dastuuri waxaan ka hadlayno marka xuduudada jamhuuriyadda Soomaaliland de waa xuduud cad oo aan oo la yaqaano wax muran gala ma horaan la inuu kala xadeeyay waxana marxaati u ah iyo cad meesha la yiraahdo iyo wixii ka soo degmada la sacad ba xukunta hadii dhul isugu kan jiro ama gobol isugu kan jiro ama degmo inaga dhaxayso halkaas Garowe u muuqata xukumi lahaydeen inta kale wax ku qaataan bay ahayd hora la inuu dawladii bariga Soomaaliya isku ahaynay in dawladooda ahaan jirnay xitaa dhulka waa kala lahayn dad ahaan iyo dal ahaan baan kala lahayn marka ehelnimada iyo tulnimada iyo dhalashada ixtiraamaan idin leenahay darsuunaga ixtiraamaan idin leenahay